وحنا قدرنا ملاليو بدو صوتك كمالين تواديف كبدرا دولة بانتيقي دوكا عقلنا حي وين انت دالمون نبت صوت بالا ومناسبة tababar lagu soo xuriyay ciidamo ka tirsan ururka xidanaad ee xoogga dalka ilaaliya xarunta madaxtooyada Soomaaliya kuwaas oo muddo ku dhow 3 bilood qaadanaya casharo kala duwan oo xagga ciidamada taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya saraakiil ka tirsan militariga maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo saraakiil ka tirsan ciidanka booliska ayaa goobjoog u ahaa taliyaha ururka xidanaad gaashaanle sare Axmed Maxamed Cali oo hadal kooban ka jeediyay munaasabadda ayaa sheegay in muddadii uu socday tababarkan ay ciidamada qaadanayay heleen cashiro ku filan maanta halkan waxaa fadhiya cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan ururka 6aad oo tababar xoog leh oo uga socday gudaha madaxtooyada qaranka kuwaas oo ay ku qaadanayeen tababarada kala gedisan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sida sharciyada qaabka dagaalka qaabka loo ilaaliyo madaxda dishibliinka macaamilka ay la galayaan madaxda iyo dadka ay la shaqeeyaan ama imaanaya halkan waxay qaateen tababar aad iyo aad u xoog badan waxa sharaf noo amaanta ciidankan halkan fadhiya waxay qaateen tababar aad iyo aad u muhiim ah kaas oo ku filan intii laga gaarayo tababarada saa'idka ah in ay ku shaqeeyaan kuna gutaan waajibka qaran tababarkaasi wuxuu socday muddo 3 bil iyo wax la eg oo saacado aad iyo aad u badan ah waxaana macallimiin ka ahay saraakiisha ka tirsan ururka 6aad taliyaha ciidanka xoogga dalka Sareeyagaas Cabdiwali Jaamac Xuseen Gorod oo soo xiray tababarkan ayaa la dardaarmay ciidamadii dhameystay tababarkaas adinka halkan maanta fadhiya mas'uuliyad gaar ah ay saaran mas'uuliyad gaar ah ayadoo anagoo dhan saaran tahay oo tuutahan u gashanay ayay mid gaar ah saaran tahay oo saydii saaran tahay adinku waxaad joogtaan Soomaaliya muraayadii laga daawanahay madaxweynaha Soomaaliya meeshii uu fadhiyay ayaa waxa leedin yiri waxaad ka noqonaysaan amniga dadka ilaalinaya amniga kaliya ma ahan markaad amniga ilaalinaysid wanaad laga gartaa ninkan inuu yahay ama gabadhaani tahay qof u diyaarsan inay madaxweyne la joogaan marka waxa la idin ka rabaa inaad waajibaadkaas ka taxadartaan oo aad magaca qaranka Soomaaliyeed yaad wakiil u tihiin oo u taagan tihiin oo u soo jeedaan oo caruurtiinni iyo waalidkiinni iyo guriyihiinna uga timaadeen inaad si fiican u gudataan haddaan idin abaal marin weyno ilaahay baa idin abaal marinaya maalin maalmaha ka mida ayaa ilaahay idin abaal marinaya ama adduunka ama aakhiro labadaas bil baa idin abaal marin doon Ali Baashi Cabdullaahi warbaahinta qaranka Villa Soomaaliya